madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku amray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed inuu sii wado shaqada ra'iisul wasaaraha waxaan idin soo gudbin doonaa war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Villa Soomaaliya sidoo kale barnaamijka qubanaha wararka Shabeelle waxyaabaha aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqonaya xasan cali khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo galabta soo gaaray magaalada Muqdisho kadib markii maanta la riday xukuumaddiisa waan idin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan sida xaaladda Muqdisho caawa ay tahay kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali khayre uu soo gaaray qodobada sidoo kale caawa barnaamijka qubanaha wararka Shabeelle aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqonaya xildhibaanada golaha shacabka oo wali isku khilaafsan sax ahaanshaha qaabka loo maro xukuumadda xasan cali khayre haddaba wadacankee ayaa mooshinka lagu rido xukuumadda loo maray رجال حسن على خيره رجال هوري سوماليا وحنا جينا يقول ان شاء الله تعالى وحنا هاي شركه قادس ديكاسي شركه قادس صحه وبروسيس شرعي لو مريها رجالها waxaa lagu soo eedeeyay oo guddoonka sida widiga afayay arrimihii doorashooyinka oo ahayd fulinteedii inuu ku fashilmay rajaaluhu waxaan idin soo gudbin doonaa xildhibaanada mooshinka ka wada ama mooshinka ka gudbiyay maanta ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa ee riday oo aragtidooda ka hadlayay qaabka sharci ahaanshaha sidoo kale barnaamijkan waxaad ku dhageysan doontaan madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya oo dhexdooda isku khilaafay war-saxaafadeed ay soo saareen oo ay kaga falceliyeen xukuumaddii maanta la riday qaarkood waxay ku tilmaameen war-saxaafadeedkaas inuusan ka soo bixin madasha halka xildhibaanada qaarna ay sheegeen ee ka tirsan madashaasi inuu sharci yahay qodobada sidoo kale barnaamijkan caawa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqonaya qaar ka mid ah xildhibaanada diidan mooshinka lagu turo xukuumadda Soomaaliya oo wali ku adkeysanaya inaysan mooshinkaasi sharci ahayn haddaba xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan xasan yare waxaan qabaa inay ahayd arrin ay ka muuqatay in sharciga lagu dhiiran yahay si loo jibinayo fiiri adiga wax intaad jareemay inta taale lagama hadlayo baarlamaan isaga badnaa madaxa waa qofkiisa oo soo hadlay saalan ku weydiinaya adiga mugtahay waxaan rabaa idaacadda tiin waxaad tihiin dad media ka shaqeeya waxaad ka rabaa mas'uuliyadda waddanka ka saaran marka fawda dhibaatada qayb ka noqon wixii meesha ka dhacay sheeg laftada banaawoolka inta ka diisay su'aalaha qaarkood naga daa waxaan idin soo gudbin doonaa wareysiga xildhibaan xasan yare qodobada kale ee barnaamijkan caawa ku jira waxaa ka mid ah xisbiga hogaaminaya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamo oo ka soo horjeestay xilka xayuubinta ra'iisul wasaare khayre iyo xukuumaddiisa isagoo na sheegay inaysan aqbali doonin muddo kororsi oo dawladdu ay ka shaqeynayso gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur sidoo kale barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda kala guurka doorashada la filan karo iyo xukuumadda maanta la riday waxa isku soo beegay dhammaan barnaamijka qubanaha wararka Shabeelle caawa waxaan ku eegi doonaa xaaladda siyaasadeed ee soo kordhay taas oo sal ku haysa in ra'iisul wasaare xasan cali khayre baarlamaanka Soomaaliya maanta kalsoonida ay kala laabteen qodobadaasi wixii nagu soo kordho ayaad caawa ku dhageysan doontaan barnaamijka qubanaha wararka Shabeelle qaybaha dambena barnaamijka waxaan idin soo gudbin doonaa dhageysan kartaan muujada FM 101.5 MHz oo ku gadaaman Muqdisho iyo gobolada ku hareeraysan meel walba aad joogtaan ismaqal wanaagsan gordhow waxaad maqli doontaan ra'iisul wasaare khayre waa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo galabta soo gaaray Muqdisho hase yeeshee waxaan ku bilaabayaa sida maanta xukuumaddiisa loo riday iyo sababta ay ku timid arrintaas saacadihii la soo dhaafay waxa baraha bulshada aad loogu hadalhayay ka hor intaysan dhicin mooshinkan loo qaaday codka xukuumadda ra'iisul wasaare khayre waxa baraha bulshada iyo warbaahinada qaar ay daabacayeen warbixin la xiriiro in xukuumadda Soomaaliya mooshin laga wado oo baarlamaanka loo gudbiyay guddoonka gaar ahaan mooshinkaas mar ahaantaasina maalinta sabtida laga doodayo xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo maanta kooramkoodu aad u badnaa isla mar ahaantaasina ah 178 ayaa la sheegay in ay maanta u imaadeen kulanka arrimaha la xiriira kalsoonida iyo sidoo kale arrinta doorashooyinka hase yeeshee intuusan kulanka bilaaban ayaa waxaa buuq bilaabay xildhibaano qaarkood wasiiro yihiin kuwaasi oo gudoomiyaha ka dalbaday inuu cadeeyo ajendaha nooca doorasho waxa uu la jeedo maadaama fariimaha loo diray xildhibaanada u ahaa in laga hadlayo arrimaha doorashooyinka hase yeeshee intaasi kadib xaaladdu sidan ayay isku bedeshay xildhibaan adigoo fadhiyo gacanta taag fariiso xeeroosaadkii ku qabanayna fariiso ajendaha waa la ansixiyay fariista xildhibaanada aan isdhegaysano xukuumadda waxay ku fashilantay inay qabato shaqadii laga rabay oo doorashooda waxaan rabnaa colka kalsooni kala noqoshada inaan u qaadno inta ogol u codayna gacantaaga hala soo tiriyo
intaasi kadib kulanka waxaa hareeyay buuq hase yeeshee guddoomiyaha ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay xafiiska uu ka degan yahay villa Hargeysa isagoona warbaahinta u sheegay in xukuumadda mooshin ay kasoo gudbeen 170 xildhibaan ay u codeeyeen in xukuumadda kalsooni laga laabto haddaba guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sida tan uga hadlay arrintaas guddoonka markuu arkay qodobka 69aad faqradda 2 xarafkiisa ba ee la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay'adaha dawladda gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 oo ku salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 dhamaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti u qaadida iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dawlad goboleedyada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axzaabta siyaasadeed si ay uga qeyb qaataan ama qeyb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54 sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020 markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku cadeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomida doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13aad faqradda 3aad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraadeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra'iisul wasaare uu yahay Xasan Khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyay waxaa ogol u codeeyay 170 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malaha sidaa daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra'iisul wasaare iyo xukuumad wadankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad u mahadsantiin guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku dhawaaqay natiijada xildhibaanada kalsoonida kala laabtay xukuumadda uu hogaamin jiray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayuu kaasi ahaa haddaba xildhibaanada golaha shacabka ayaa arrintan ku kala qaybsamay xildhibaanada mooshinka keenay waxaa ka mid ah xildhibaan Sharmaake Saleebaan Buraale waxaana weydiinay bal sharciyada ay u haystaan iyo waxa ay ku qeexayaan mooshinkooda maanta xukuumadda rajaal Xasan Cali Khayre hogaaminayay waxaa laga qaaday kalsoonidii sida uu sheegay dastuurka dowladda federaalka qodobka 69aad awoodaha golaha shacabka ayaa sheegayay in wasaaruhu ay korjoogteyn ku samayn karaan lagana xisaabtami karaan hawlihiisa shaqo ee loo igmaday oo uu horkeenay baarlamaanka haddii ay ku qanci waayaan shaqadii uu dalka waayay inay kalsoonida kala laabtaan marka rajaal Xasan Cali Khayre rajaal hore Soomaaliya waxaan rajeynayaa guul insha Allah taala waxayna ahayd xilka qaadis sax oo barnaamijka sharciga loo maray sidee loo maraa sharci ahaan wadada loo maray markii wasaaraha xilka laga qaadayay sababtoo ah muddadii kulanku furmayay iyo xilka qaadistiiba waxa u dhaxaysay wax ka yar 20 daqiiqo walaal uma dhaxaynin dood badan baa socotay ilaa iyo xalay wasaaraha waxa lagu soo eedeeyay oo guddoonka sidoo idin afayay gudoomiye Maxamed Mursal arrimihii doorashooyinka oo ahayd fulinteedii inuu ku fashilmay wasaaruhu sidaa darteedna oo baarlamaanku kalsoonidii kala laabtay si loo helo xukuumad waddanka gaarsiisa doorasho hal qof iyo hal cod ah
xilliga kala guurkana ka saarta marka waxaan u aragnaa inay wadadii sharciga ahayd loo maray qodobka 89 ayaa la sheegaya rasaaruhu gudasho la-aan haddii uu sameeyo ama uu sameeyo uu ku fashilmo yani gudasho la-aan in xilka laga qaadayo waa gartay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya maxay waqti ama fursad u siin waayeen in xukuumaddu ay eedeymahaasi ay ka jawaabto walaalow waa sax waa su'aal muhiim weeye xukuumaddu rasaarigu baa ka maqnaa magaalada Muqdisho oo magaalada Soomaaliya joogay laakiin golihii wasiirada waa joogeen majority waa u codeeyeen xukuumaddoodu inay ku fidgarooday arrintii lagu soo impeach gareeyay oo lagu soo eedeeyay inay gulan weyday oo ah arrintii doorashada fulinteedii in hal qof iyo hal cod wada kala gaarsiiyo maadaama uu golaha shacabka soo gudtay waajibaadkiisii xeerdejineed waajibaadkii fulinta ay lahaayeen inay ku fashilmeen golaha wasiirada codeeyey majorityna waa joogeen 50 xildhibaan oo golaha wasiirada marka 4 wasiir laga reebo hal wasiir buuxa iyo 3 wasiir ku-xigeen marka laga reebo intii kala gacantii u taagan xukuumaddooda inay ku fashilantay marka taasaan aqoonku ku tahay inaysan dalka maanta xukuumad kama jirto oo xukuumadii baarlamaanka ayaa riday nidaam doorashaduna waa soo dhowdahay oo muddo balooyin ayaa ka haray marka baarlamaanka xalka kale ay sugaya xilligan ay wajahayaan maxay tahay haddana anagu waxaan sugaynaa oo kaliya sida dastuurka loo ogolaanayo qodobka 9aad inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku 30 casho gudahood wasaare cusub kusoo magacaabo wasaarahaasina uu soo dhiso golo wasiire ah oo wadanka ka saara marxaladan kala guurka iyo xilliga doorashada lagu jiro marka anu hadda waxaan sugaynaa magacaabista wasaaraha cusub si aan waajibaadkayga uga gudano u ansixino xukuumaddiisana noo ku keeno anyagana u siina baandeedkii ay ku shaqayn lahaayeen xildhibaane muuqaalada baraha bulshada maanta la soo dhigayay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah wasiiradii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo jijibinaya hantidii qaranka gaar ahaan mikrofonadii golaha baarlamaanka yaalay marka maxaa baarlamaanka arrimahaasi uga degsan xeerasaada uga degan insha Allah nimankaas waa xildhibaano golaha shacabka ka tirsan wasiirnimada waxaa siinaysaa xildhibaannimada siinaysa marka laga reebo xasaanadooda xildhibaannimo ubaanaan ku xisaabtamaya tawsiir waa mid dheeraada insha Allah waxaan soo guddiga xeerasaadka iyo guddoonka ayaan ku sugaynaa inay ganaaxi ama banishmentigii lagu sameyn lahaa xildhibaanada xeerasaadka qoray in lagu sameeyo marka iyagana dib kasoo sheegi doona xaggaale guddoonka waa gartay xildhibaane su-aasha ugu dambeysa waxay tahay maanta waad rideen xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo muddo 3 sano ka badan ba dalka soo maamuleysay shacabka Soomaaliyeed way idinka warsugayaan maxaad u sheegaysaan maanta shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaysan wax dhibaato jirin wadankani uu hore u soconayo insha Allah madaxweynaha ka rajeynayno inuu ra-iisul wasaare waxa uu ahaa xildhibaan Sharmaarke Saleebaan Buraale oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada mooshinka xilka qaadista iyo xukuumad ridida ku soo oogay ra-iisul wasaare Kheyre isla marhaantaana maanta codka u qaaday dhinaca kale xildhibaano uu ka mid yahay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo wasiirka ku-xigeenka warfaafinta ayaa maanta ka soo horjeestay iyo xildhibaano kala dhowr ah marka laga hadlay wasiirada sidoo kale waxaa ka mid ah wasiirka waqaafta arrimaha diinta wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiiradaas iyo qaar kale oo xildhibaana ayaa ka soo horjeestay arrintaas mar ahaantaana waxay ahaayeen xildhibaanada buuqa sameeyay oo kulanka golaha diiday in xukuumadda lagu qaado kalsoonida haddaba sidoo kale xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo loo yaqaano xasan yare kana tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya waxaan weydiiyey bal waxa ay ku diidanayeen in maanta xukuumadda talada laga tuuro laani wax maanta baarlamaanka ka dhaca waxaan arkaa wax fool xun oo sharci darro oo aan fiicnayn oo qurux badnayn sababtoo ah xukuumad kalsooni waa laga laaban karaa waa la ridi karaa laakiin procedure loo maruu leeyahay xali ana masjid baa noo soo dhacay leeyahay Soomaaliya leeyahay baarlamaanka Soomaaliya macnaha bari waxaa leeyihiin ajendaha iyo doorashooyinka laga hadlaya markii aan tagnay saaka doorashooyinka laga hadlaya maxay yihiin sharci doorashada wax dhan waan dhameynay inta khilaaf uu jiray labada aqal ee baarlamaanka ah xilmiyada golaha shacabka ka hor imaato labada aqal hor imaato ahayna 13 bilood oo cusub waxa laga hadlayaa mashruuca dul Soomaaliya baa laga hadlayaa wixii ka soo baxay wuxuu yahay markaa dhaxlay oo la isku buuqo la sheegi waayay
baarlamaanka buuqadan baa ka dhacay xildhibaanada baa istaageen waa isku buuqay marka la isku buuqay gudoomiyaha wuxuu yiri xukuumaddu way dhacday 170 qof bay ku dhacday 8 way diideen una idaaftan ka baxay kadib guriis ka soo dhaxay laadana meesha kuna buuq iyo qayl ahayd marka procedure-ka wuxuu sheegayaa ra'iisul wasaaraha ka tirsan xildhibaan baa ka keeni karta motion ama xukuumadda tirsan kala laabasho ah kadib waxaa uu ku fashilmaa la soo bandhigaa kadib dood baa la geliyaa dadka kadib waa cod la geliyaa marka waxa aan ajendaas ma jirin motion lagama keenin lagama hadlin lagama doodin waxa ahayd diyaab laba ah xasuustana baarlamaankan guddoonkiisa horwaad ka sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya aragtay afar sano soo dhaafay baarlamaanka loogama yeerin waxna lagama weydiin marka idan waxna laga weydiin su'aal laga weydiin wax lagu dhacay iska dhaxay marka waxyaalaha yaab kale baarlamaanka madaxweynaha hadda aan kamid ahay ee dhamaanaya ee ku dhaqaaqayaan wayaan waxaana qabaa inay tahay mas'uuliyad darro badan oo dadka xasiloonida darajada xasilada gelinaysa taana way marka xildhibaane maxaydan u sugin go'aanka baarlamaanka maadaama la idinka cod batay oo marka la eego intiina diidaneed ajendaha in lagu daro xilka qaadista xukuumadda ama in laga hadlo doorasho diidaneed waa idin koobneedeen laakiin waxa idinka badnaa xildhibaanada kale maxaydan u sugin oo xildhibaanada kale u tixgelin macluumaadka ay tahay khaldayeen aad u khaldayeen waxa ku khaldayeen macluumaadka ajendaha soo diray doorashooyin buu ra'iisul wasaaraha lagu daray iyo xukuumadda lagu daray lama soo dirin kala socotaan mucaarad baan ahay oo dawladda mucaarad baan ku ahay xildhibaanada mucaaradkan kamid ah aniga laakiin xildhibaanada tagay guddoonka waxay ku dhaheen meesha doorasho ku qoran doorashadeeda loo sharax haween waa la hayay in la dhigi rabo laba qof inta hadlaan uu dhacay inta san la dhigi rabo marka haddii ay tahay xukuumadda wax laga keenayana doorashadii kala soo marsiiyo xildhibaanada soo saxay mooshinka soo saxan in kasoo xukuumadda 3 bilood 4 bilood ku hartay xukuumadda baarlamaanka 3 bilood oo hartay xukuumaddana doortay ka bacda xukuumadda hadda si shaqeynaysa ma ahaba sababtoo dadka kala guud ku jira baarlamaankana November tan ku yahay muddo xiliskiisa waxaan qabaa anigu inay ahayd waxa sabab gaarin waxaan ahayd arrin ay ka muuqatay in sharciga lagu dhiiran yahay si loo jiminayo marka xildhibaan xasan yar hadda marka loo eego tiradiina xildhibaanada diidan in xukuumadda la rido waa ay kooban tahay waa la idinka badan yahay hadda maxaad qorsheynaysaa adiga wax muddo gareemay meesha inta taayay lagama hadlayo ama qof dadka meesha istaagay cid walba isku jirto ilaa iyo xildhibaan ilaa iyo aad karbada meesha istaagay laakiin baarlamaanka waa la idinkaga badnaa Soomaaliya laakiin baarlamaanka iskaga badnaa malaha waxa markee procedure la keeno dood la keeno oo arrinta walaal hadda la ogaada cod la kiyo laakiin guddiga baarlamaanka hadda uu dhacay la dhahay badnaanshaha yaawa وفضل يوقف من بقول يتواصل معه بقول يتواصل مع بعض واحد جديد واحد قال هذا مش رابع مو داعي فوق داول كتبي وأنا كوا عدينا واي قلت لكن أودي ده سماين وحضله واي قلت شو وصل هذا كانوا كويدين ياي هذيك حلبان هرتنا سؤال شيء ودي سألي إن أنا كويدية كوها بنت هاي وواسيلا كوسا وعي وصل أنا تواي أستجع أنا الدنيا طالما كنت سمينا الشرعي هذا البروسيدور مرسيني ويقول كيسو وصل حلي وداعي وشرح ياي وداعي حكومة بلد على وداعي وده حد واي برلمانك مقتعي وحال روا إذا عدتين وحاتين ضد ميزة كشقية وحال ذكرها مسؤول وضع كان يكسر وعندك مركز فوضى هي دبعتها السوق هذه فوضى دبعتنا كيف كنا قلتين ما مركز فوضى دبعتنا كيف كنا قلنا وإحنا ما كنا عايشين لفترة أنا أقول كنت هكذا في سؤالك قلنا جدا ما لكن حلواني وهذا شيء هو شيء الرواء وإحنا ما كنا ماشي وحياة أجندة على كان الدور شبابنا واضح تقول جدي ماشي على كيلو بلوتري وعلى الدور شو عن كان بين كل شيء حقه خلاص والله عندك هو رئيس الوزراء على طول يعني رئيس الوزراء على طول ماشي هو قرنبه في حكومه على طول يعني رئيس الوزراء الدفاعي كما عندنا رئيس الوزراء الدفاعي انا معارضه ولا لكن على هذا يعني وروح الشرعي من رئيس الوزراء عندي حكومه هذيك كسر هلا لابتو مش على سوقه هلا كانوا ولكن مقربه كسر ضعيف حسب هو حسب ودرنا الدخل هو عيار ما ذاك المسؤول عن كسر وانا كشل عنده توحيات قاركود إذا لفتنا فاصلة ثانية وده كان بربك شغال كذا قلنا إذا عادات ما نحبنا ما يحلبان لكن هدي قدوميه أري شرع الدراء وكانوا إن هذا بروسيجر صحة النظام صحة أمرتان وأتكهرتان محايدين دي أنت كراسي ميكروفونات الجميل هذين وعلى يستاهل حال المدير قدامي أنت قدامي أوني ماني ما قولي ماشى أوني ماني قد لو درو الله فرشت أقول قدامي أنت ليش تيجي أجندها نوجرعي وهو كل الجلال اللي شرح فكرت ودي والله كان كشيء ياوي والله كان قد يرى قرنا بقول ثلاثة وقرنا بكشيء مركب مشاريع دراسة وصعبنا يعني واي مركب ميكروفون هذا جي بي سي محيدين كيس تحلبانه ميكروفون عندي جي بي سي ودي انا ميكروفون مال الفيديو يعني مو
waayo marka xildhibaan xasan yare waaba sheegtay oo mucaarad aan ahaa tiri hadda xalku muxuu ku jiraa maadaama hadda baarlamankiina dhexdiina aad kala qaybsantihiin qaarna ay leeyihiin xukuumadda waa inuu ridnay qaarna ay kasoo horjeedaan baarlamankiina maxaa xal u ah muhiimadda horta wadankan mas-uuliyad baa dadka ka saaran wadankan 4 sano waa la isdoortaa haddii xukuumadda ridayana iyaas lahaa ra-iisul wasaare madaxweynaha asagaa dhihi jiray ka dhihi jiray lagasigayga waxaa weeye aniga ra-isul wasaare 4 sano waa dhamaysanayna asagaa sheegi jiray lagasigiisa asaa ka tegey 3 bilood xukuumad ka dhiman tahay oo teekeer ahoo oo shaqooyinka ay qabanaysa iska xadidan yihiin doorasho wadanka ku jiro dhuusmareesha ay hadda lagu ballansan yahay in wadankan karaayis la gelin mas-uuliyadda rawaayo markaan waxaan arkay waxaa loo sameynaya waxaa waaye station directing laga soo waayo dowlad goboleedyada ayaan rabaa in la xukuumad cusub baa dhisaya in lagu helo wax ka badan wax ka yar ma jiraan taas macna waxaan qabaa wadankan in khatartiisa iyo ay leedahay marka ma garan karo see noqonaysa kan waxay muuqataa khatar dalkan kusoo wajahan baa muuqata waxaan rajeynaya inuu ilaah ka badbaadiyo sababtoo ah haddii xaalad kala guura noocan oo kale ah haddii hal sano ka hor ay ahaan la jiray xukuumad xukuumadda san kale iyo sandiba kale ay shaqeynaysa okay laakiinse baarlamaan October 15 baarlamaanka xilliga soo doortay xilliga ku wareeg 15 baa la doortay November baarlamaanku dhacaya madaxweynaha February uu dhacaya waxa uu jiraan wixii raad dhusmaro uu soo heshiiyay lahayd ay safar soo tagan oo waxan marka ra-iisul wasaare hadda soo magacaabo xukuumadda hadda soo magacaabo golaha wasiirada Kenya baarlamaanka baa Kenya waa laga ansixinay xukuumadda mandate baa la siinay inta doo ay qaan kartaa inta ay shaqada inay ku qabatay shaqada ku baratay ay tababaran kartaa marka waa dheeraysi loogu talagalay waana go'aan madaxweynaha uu soo gaaray waa sababtoo asaga dhahay arrinta sameeyo markii koowaadna maaha sharci darrada oo baarlamaankan golaha shacabka ka tirsan ku dhawaaqo maxaa marka labada aqal way kala tageen aqalka sare ku dhax sharci doorasho lagu tagi karo sababtoo ah lagu geli karo doorasho sababtoo ah wala midisay way dhahan gudoomiyaha aqalka sare soo sheegay xeerarka labada aqal soo saareen waa la tuuray xalimadii waxay tiri walma walba baqan karo hal sano iyo 3 bilood u baahnahay marka wixii waa iska jahwareed baa jirma oo xagga taagin wada lagu madarey leeyihiin hadda heshiiska soo jiray guddiyaha soo magacaabay shaytan oo waxa soo imaado hala tiriya la option doorasho xilli lagu geli karo way marka xildhibaan waxaas lagu daray marka xildhibaan xasan yare waxa saraan ugu soo sheekeynay dhibaatooyin baan ka jirta meesha mucaaradkiinu dik maxaad xal u aragtaan adoo ii soo koobay wallahi daana mucaarid kalima nin walba qof walba Soomaaliya garan kara doorasho xilliga ku dhacdo waxaan howarna karays inuu yahay karays kan muddo dheer in laga rabo marka muddo dheer hadii wadankan ay Soomaaliya ogolaanayso inay u taala anay tiriyano ma taala Soomaaliya dhanba u taala hadii oo loo ogolaanayo 2 sano wixii ka badan 3 sano inay dawladna sii jirto oo waxa ka iman karaan hadii la aqbalayso u taala laakiin waxa qabaa dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya ani kaarkii aan watay baarlamaanka December oo dhacaya oo expired ku qoran marka December dawladda Xasan Cabdi Ismaaciil baa noqonaya macnaha mugtay 4 sano mid ah sadakii soo siiya dad baan si way ku siiyeen adeega fartamaan u baahan marka ani kursi waxay u miisan dadka wadankan burbur ku imaada xasiloonidiisa siyaasadda kursi ka muhiimsan ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama baarlamaanka aado ama golaha wasiiraha ahaadaan dadkan in loo naxo wadankan xaalad khatar aan gelin muhiimadana oo arka aragtida laakiin waxaan qabaa in maanta baarlamaanka ka dhacay inay tahay mas'uuliyad aad u weyn wadankan karaayis siyaasadeed lagu gelinayo ayaan u arkaa توكل جنرال تريدين كمباني لغو كلسونا إله با كراميي والله كاملا كلينتيgeeda waxa loo hayaa caana kaafiya caanaha loo riyaaqay dunida isku raacday been way reebantay hadalkeen run way caanaha baqaratul maraaci iyo super fresh gram kooduna yahay 2500 gram qof walba raadinayo kuwan waa la rabaa توكل جنرال تريدين كمباني caanaha baqaratul maraaci iyo super fresh hadaa siisa caruurta idan ka ilaahay cudur soo ridi maayo iyaga cilaaj canugi isticmaala isaga iska ciyaara weligii ma caroodo oo oohintuna waaba ku ceeb caanaha baqaratul maraaci aan super fresh توكل جنرال تريدين كمباني waxay ku keentay caanaha satra iyo riino waxdan baa la silugay caanihii sabankan muddo suuqyada yeelay waxaan maanta sidaa satra iyo riino ee bulshadiisa caruurta adna yiisi ku sheegeen caanaha satra iyo riino waa sabi caana la siiyo hooyo weyn sadkeed ah aabba saaran sariirna sina uga maarmin cunugii mar la siiyana asaagii ka sareeyo ee bulshadiisa caruurta caanaha satra iyo riino hadalkeedu sax weeye caruurtii mar la siiyay sahal bay ku koraan fitamiin baasalka yaala calcium baa ku samaysan iyo 9 kilo fitamiin ee bulshadiisa caruurta satra iyo riino adna yiisi ku sheegin reerka satra iyo riino suuqa aanan ka iibsan oo saygeedu uusan cantuugin hooyada aan la siin oo ubadkooda aan lagu seexin martida aan lagu soorin saadaq aan ku su'aalay miya aan la siiyay maya kuwa hamuutooda ku seexday iyo iyagu waa isla seex hadaba caanaha satra iyo riino oo ah caana aad u dhadhan wanaagsan ayna cabi karaan caruur iyo ciroole waxay soo mareen tijaabo waxayna haystaan
shirkado caalami ah waxaana dalka ku keentay Tawakkal General Trading Company oo xaruntooda ugu weyn ay ku taalo suuqa bakaaraha gaar ahaan bushashada baabuurta daafeed Citra iyo Rino waxaana miisaankooda uu dhameystiran yahay lehna borotiin calcium iyo fitamiino kale wixii faafarinta dheer kala xiriir eber 659 eber 654 haddaba ha moogaan caanaha Citra iyo Rino ogeysiis muhiim ah dhammaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo waaxigeeda waxaa la ogeysiinayaa in adeegyada caafimaad ee isbitaalka Muqdisho City Hospital oo la jaan qaadaya isbitaalada caalamka ay diyaar kugu yihiin dhaqaatiirta kala ah dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka Dr. Cabdullaahi Cali Mucallim oo ka daweyn doona dhammaan cudurrada ENT kuna sameynaya qalimadooda dhakhtarka haweenka dhakhtarka qaliinka guud iyo qalimada laserka Dr. Cabduqaadir Ciise Diiriye dhakhtarka lafaha dhakhtarka wadnaha iyo xididada dhiigga Dr. Maxamed Jimcaali oo isticmaali doona mashiinka ECG echocardiogram dhakhtarka daaweynta qurxinta ilkaha iyo qaybta farsamada ilkaha waad ka helayso qalabkii ugu dambeeyay ee lagu suubiyo ilkaha oo loo yaqaano circonomian machine dhakhtarka caruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo uurku jirta oo adeegsan doona tubada gaaska dhakhtarka gargaarka degdega qaybta gargaarka degdega oo 24 saac qaybta dhalmada oo 24 saac qaybta baarista dhiigga iyo dheecaanada hormooniska qaybta saalada qalinka qaybta bukaanjiifka waad ka helayso qolal gooni oo VIP ah fiiro gaar ah isbitaalka Muqdisho City Hospital wuxuu ogeysiinayaa sidoo kale bulshada Soomaaliyeed inuu bilaabay fulinta qalimada cagatoosinta ama dadka cagaha qaloocan si bilaasha sidoo kale maalin kasto Arbaca la kulanka dhaqaatiirtu waa lacag la'aan isbitaalku waxa uu ku yaalaa degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Taleex ee kis madaxtooyadii hore Cabdiqaasin wixii faahfaahin intaasi dheeriya kala xiriira lambradan eber 699 eber 679 ama eber 679 ha moogaanina isbitaalka Muqdisho City Hospital warshada isbuunyada Jasiira ubaxtiin ka baxay iyo joohar lamoodi hadii ubadka jeer koray ii sheeg jabiilay waxa dunida jeceshahay iminkaba jikaakiyo shiina aan ka jiriye jaw adoon aadin jikaako waxaan aad u jeclaystay joodariyaasha Jasiira haddaad ii jirinayso oo jeeska badigadiisa joodari waaba kuwan jijabkan ku nacbaystay jaad xumadooda daqiiqad bay jugdhahan wax jira maahan kuwani axsan joodari fiican Jasiira farsamaysa oo maxaad ku jeclaatay joodariyaasha Jasiira jamaad ay farsamayso joodariyaasha Jasiira jalla ay farsamayso majilcaan waligood jiifka loogama maarmo oo ruuxa Jasiira u jeedana joodarigeeda wanaagsan jooqa meel kama qaato ee hadda iiga jimlee kingi iyo cajiib iyo kuwiinka jabanayso caruus uu ku jira iyo fadhiyaalka la taadaha hadba ka dir jeclaato jasti qaadaxdi hadaba warshada isbuunyada Jasiira waxay soo saartaa joodariyaal tayadooda sareyso kala ah Jasiira caruus cajiib raaxo iyo kuwa VIP ah kingis iyo kuween iyo waliba medical foam mattress iyo joodariyaasha Big mattress oo nooc casri ah oo hadda ka hor wali wadankan lagu farsameen iyo fadhi carbeed casriya oo tayo leh warshada isbuunyada Jasiira waxay baranjiyaal ku leedahay bakaaraha maalin taajir suuqa Khalifa Saybiyaano Xamarweyne ceelasha biyaha iyo afgooye hadaba waxay faahfaahin intaasi dheeriya kala xiriir telefoon lambaradan eber 612 eber 612 eber 612 ama eber 612 hadaba ha moogaane hore u gaar warshada isbuunyada Jasiira wargelin muhiim ah dhammaan bulshada ku dhaqan Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa lagu wargelinayaa in isbitaalka Care Our Service Maternity Hospital oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano COS horeyna ugu caan baxay cudurrada haweenka iyo taranka waxaa lagu soo kordhiyay dhakhtarka cudurrada guud iyo maqaarka dhakhtarka cudurrada caruurta waxaa ka howlgala Dr. Maxamuud Cali Cusmaan Maxamuud Cadde kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo taranka wuxuu ka daweyn doonaa insha Allah dhakhtarka dhalmalaanta Allah bixiyo ubadka baaritaanada iyo la tacaalida cudurrada dhiciska iyo wax walba oo keena furida tubooyinka waxaan qaada qalin la'aan qalinka hooyada uurka leh iyo burooyinka dumarka ku dhaca oo muliso 24 saaca sidoo kale qaybta dhalmada lagu diyaariyay barkad biyo diiran leh oo foosha fududeynaya insha Allah sidoo kale isbitaalka waxaa ka howlgalaysa Titoreysa Ramla Maxamed Cali Ramla Kalay waa dhakhtarad ku takhasustay daweynta xanuunada ku dhaca caruurta waxayna wax ku soo baratay dalka Ruushka mudana ka soo shaqaysay dhakhtarada waxay khibrad u leedahay daryeelka ilmaha ku dhasha bila dhimanka iyo dhammaan cudurrada caruurta sidoo kale isbitaalka waxaa ku soo biiray Titor Cabdiraxmaan Afshir Titor waa dhakhtar khibrad u leh cudurrada guud iyo kuwa maqaarka wuxuuna ka xaqabtiri doonaa insha Allah cudurrada maqaarka oo dhan sida baraska haaraha wajiga timaha daata
infectionka maqaarka sida cambaarta allergikada iyo samboorka waxyeelada daawooyinka la isku cadeeyo ay u geystaan maqaarka iyo cudurrada neerfaha iyo qalalka haddaba isbitaalka Care Our Service Maternity oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano COS waxa uu ku yaalaa isgoyska laba dhagax dhanka wadada suuqa Daxmar Jadiid dhabarka dambe ee maqaayada Al Nasri wixii faahfaahin intaasi dheeri ah waxaad kala xiriiri kartaan telefoon lambarada eberli hal 553 ama eberli hal 64 eber halkan waa idaacadda Shabeelle ee Muqdisho qeybihii dhexe ee barnaamijka qubnaha wararka Shabeelle ayaad dhageysanaysaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadleen xaaladda kala guurka ee dalka doorashada la falan karo iyo xukuumadda hadda la riday waxa isku soo beegay iminka waxa qadka si toos ah ugu jira falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ku sugan dalka la yiraahdo Holland magaciisu waa Maxamed Muuse Maxamed ku soo dhawaad barnaamijka qubnaha bal waxaad iga warantaa maxaa idin kaga baxay xukuumadda talada laga tuuray iyada waqtigii gabagaba ay tahay waa ku soo dhawaay dadka Soomaaliyeed oo kasta joogaan waxaan salaamayaa iyo shaqaalaha idaacadda Radio Shabeelle iyo adiga laftiga istiidiyaha fadhiyada dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool waxay ku noqotay arrin shock ah ama arrin naxdin ah argagax ah oo aysan ka filaynin dowladda Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo xildhibaanada Soomaaliyeed taasoo u arkayeen maanta oo lagu jiro gabagabadii iyo gulaankii oo dadka Soomaaliyeed oo gudaha ku joogay kuwa dibadda joogaba islaayeen waxba la isku raaci doonaa doorashada dal iyo doorasho toos ah ama waqti xilli gaaban baa lagu dari doonaa dowladda oo lagu soo diyaariyo diyaarinta mashruuca doorashada Soomaaliyeed si kastaba ha loo qaatay ama ha u soo dhacday ayaa arrintan waxay ku noqotay fajiciso ku soo booda waxaa halkaasi ka muuqatana in baarlamaanku uu yahay baarlamaan si kale u shaqaynayo oo aan ahayn baqayl mas'uulnimo ah dadka Soomaaliyeedna ay ka sugayeen ayagana waxa sharci u dambeysay inay iska qaadeen taasoo aan maanta looga fadhiyay inay xilka ka xayuubiyaan ra'iisul wasaaraha si buuqa oo u kafaysa qodobka 69 ee dastuurka dalka ee ah awoodda golaha shacbiga uu leeyahay ee baarlamaanka federaalka taasoo ay ku tusayso inay marna la diiwaano bannaan tahay marna la joojiyaa bannaan tahay dadkuba in wax la isu soo hadoodo dadkii meesha ku jira xildhibaanada qaar waxay leeyihiin mashruucyadii xalay la siiyay oo loo soo dirdiray waxaa hadda email waxaa lagu diraa whatsappyada waxaa lagu soo dirdiraa laakiin sharciga dastuurkan wuxuu qabaa in horta la akhriyo laga baaraandego la tirageliyo la xaadiriyo laga soo arrinta mooshinka la soo horkeeno la mara habka dad ah oo qorshaysan ayuu ahaa sidaasaan u aragnaa waxaasaana looga baxay in qayr mas-uulnimo weyn ay halkaa ka dhacday tallaabada maanta baarlamaanka uu qaaday maxay u dhimi kartaa arrimihii doorashooyinka iyo habsami socodkii xukuumaddu qayb ay ka ahayd shacbiga Soomaaliyeed waa ay arkaan weliba kuwa dhibka qaba oo ka dhursugayo oo wax ka dhowraay waa dadka gudaha jooga way anagu oogaa ma taqaanay wax ku darsi iyo fikrado iyo waxaan u lahayn dadka Soomaaliyeed inaan mar walba warbixino iyo digniinsiino walow hadda aan mas'uuliyadda saarnay in wadanku uu dawlad leeyahay dawladda laga rabaa inay dadka warbixinada siiso kana badbaadiso dhibaato kasta ugala digto una sheegto khidadda iyo dhibaatada ka jirta dadka Soomaaliyeed waxay sugayeen inay ka baxaan dhibaatada taas ay doorasho loo diyaar garoobo ay noqoto doorashada waxay noqotay wax la isku gaarayo oo qof danaysi qarin uma danaynayaan
waxayna ka bixi waayeen waxyaalaha la yidhahdo 4 iyo 275 xildhibaan oo markii horeba lasoo diyaariyey qorshe caalami ah waxa oo anigu waxaan xoogayaal u ahay diyaarinta 275 xildhibaan way ka baxeen wadamadii sida Afghanistan Iraq way ka annaga saddexaan ku ahay Soomaaliya 275 xildhibaan waxay bedeleen sharciyadoodii waxay heleen xildhibaano ka saara dhibaatada maanta jirta ama wixii lagu soo doortay oo ay 4 iyo 5 taashan looga fadhiyay in la diyaariyo doorasho dadka ay galaan qaab kasta ku timaadeen mana ay soo joogin xilkaana ma ay gudanin dadka xildhibaanada maanta matalaya dawladda iyo dadka Soomaaliyeed maxamed hadda hadii baarlamanku arintan waa kuleetu cod bay u qaadeen madaxweynuhu waa ka aqbalay maxaa laga filan karaa ra'iisul wasaaraha maxaasa iska dhimayo shirkii Dhuusamareeb oo ra'iisul wasaaruhu qayb uu ka ahaa laguna xanto in uu xubnihii isku soo dhaweynayay dawladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleedyada dadka Soomaaliyeed waxa ka qarsoon shax la khiyaarayo kale aanan garanayn annagu shaxdaas oo aanan garanayn dadka Soomaaliyeedna ay yuusan yihiin in ay tahay dad dawladda shisheeye u shaqeeyay ay mas'uuliyiin dadka Soomaaliyeed u yihiin oo u sheegaan oo xaqiiqda dadka Soomaaliyeed iyo xaqiiqka lixnadiisa sharaftiisa qinaanadiisa kulaankiisa ay dadka Soomaaliyeed soo hordhigeen dad kala gadaan ay ka fadhiyaan weyn bay ku tahay nimankaan islaan wadaniyiin way wax qabsoon ka aamusnayn inta dhammaan kasta ay sameeyeen awoodda shacbiga loo eegay aan la lahaayeen mar walba dadka way ka hor yimaadaan dawladda way ka hor yimaadaan dad walba way diidaan ayaguna ma yimaadaan meesha inaanu aragno in dadka xumre ay isaga dhigaan dad wanaagsan arrintaa waxay su'aashaada haddaan u soo noqdo shirkii Dhuusamareeb waa wax way kala jiraan waa khibrad iyo siyaasad la digaayay ururku wax la yidhaahdo ama doortus ama waxa la yidhaahdo hay'adii la tusaayeynaahay wax la soo dhaweynahay ma jiraan dana kale laga sheekeysanayo iyo qorshe qarsoon dadka Soomaaliyeed gadaal ay ku ogsoon doonaan waxa loo sheegay dadka Soomaaliyeed waxay runta maaha umana dhawa xaqiiqatan umana dhawa dadka Soomaaliyeed waxa si birtay damaaci darayste khaa'im mas'uuliyadiisa aan aqoonin halkaas ay ku jireen waxaan mar walba dadka soo codooyin bay ugu way laakiin aan ka dhex galo maxamed caalamku ay noqon doontaa in ayagu ay ka fadhiistaan oo go'aan laga soo sida wala fiican maxamed laakiin maxaa laga filan karaa ra'iisul wasaaraha sidaas way su'aasheedu ra'iisul wasaaraha waxaa laga filan karaa in kulli ciyaarta uu ku jiray wuxuu diidi karay wuxuu yeeli karaa mala meesha ugu sarreyso oo laga ogolaaday hadii laga haystaba waxay noqonaysaa in haddana ay u sii jeestaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wada ka takhaluseen madaxweynaha laga yaabaa khalkhal in la geliyo waa gartay marka ugu dambeyn maxay ku jirtaa xalku maadaama xildhibaanadu iskhilaafsan yihiin ra'iisul wasaaruhu weli wax war aan laga haynin xasan cali khayr oo xukuumaddiisa maanta la riday in uu aqbalay inuu diidan yahay asagaanu ka warsugaynaa horta prime ministerka xasan cali khayr xasan bile inuu si geesinimada go'aan cad u sheego dadka Soomaaliyeed uu horyimaado xaqiiqdana uu sheego uu yiraahdo war meeshaan waxaa dulqaadkaasaan ku soo waday wayna dhamaatay arrintaasaan hadda dadka Soomaaliyeed dala ganacsan yahay inuu caddeeyo mawqifkiisaanu ka sugaynaa inaanu ka maqlay idaacadiina iyo idaacadaha kaleba iyo warbaahinta Soomaaliyeedba waxayna noqonaysaa dawladda inay ahaato dawlad dadkeeda khaaintay dawlad dadkeeda daba martay dawlad dadkeeda u qaban hawshii laga rabay dawladda ka soo bixin waajibaadkii dastuuriga ah waxaana arrintaa mas'uulka ah inaan la samaynin maxkamadii dastuuriga ah oo kala saari lahayd dadkan haysta hoos fadhiga iyo deelayda iyo muralayda iyo fadhi ku-dirka aad baan kugu mahad celinayaa maxamed muuse sidoo kale annagu idin maxay dadka Soomaaliyeed dulqaad baa laga rabaa khayr baa ilaalaaya asban insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal falanqeeye arrimaha siyaasadda Soomaaliya maxamed muuse oo ku sugan dalka Netherland ama Holland oo qadka si toos ah ugu jira waxaana falanqeyn ugu la sameeyay xaladii ugu dambeeyay ee dalka xisbiyada siyaasadeed ee dalka qaar ka mid ah ayaa arrintan ka hadlay xisbiga uu hogaamiyay siyaasiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ee la yiraahdo wadajir ayaa waxa ay si xoogan u diidan yihiin xilka qaadista sharci darrada ay ku sheegeen waa xisbiga ka soo baxay sida lagu sheegay ay ku sameysay xukuumadda guddoonka weeyane oo golaha shacabka xilka qaadista ra'iisul wasaaraha waxa ay sheegeen xisbiga wadajir inuusan u marin hab sharci ah oo dastuurka waafaqsan xilka qaadista ra'iisul wasaaraha kuma jirin ajendaha golaha mooshin eedeen ah iyo saxiixa 50 xildhibaan ayaa golaha hortiisa laga aqriyay lagama doodin mooshinka codna lama gelin ayaa sidaasi lagu yiri xisbiga wadajir war qoraal ah oo soo saaray caawa xisbigu waxa uu aaminsan yahay in sababta ugu weyn ee xilka qaadista ra'iisul wasaaraha loo sameeyay ay tahay in la carqaladeeyo kamira dhalinta natiijadii shirka Dhuusamareeb waxa kale uu sheegay ujeedka madaxweynuhu uu yahay muddo kordhin sharci darro ah
taas oo dalka u horseedi karta xasilooni darro siyaasadeed iyo qallaase amni. madaxweyne farmaajo marna diyaar uma aha inuu ilaaliyo dastuurka, heshiisyada siyaasadeed, wadajirka iyo xasiloonida dalka. waxa uuna wax kasta uu kacay ama uu kacayaa kordhinta mudaxileedkiisa. si kastaba si looga hortago arrintaas waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed, saamilada siyaasadeed iyo beesha caalamka in lagu gacan siiyo xukuumadda inay ka miro dhaliso natiijada ka soo baxay shirka Dhuusamareeb si loo qabto doorasho lagu wada qanacsan yahay oo xilligeeda ku dhacda dalkana fawdo iyo colaad sokeeye aan loo horseedin oo laga badbaadiyo. sidaasi waxaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay xisbiga hogaamiye siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka qubanaha wararka Shabeelle. goordhow waxaad maqli doontaan warar kale oo ku saabsan xisbiyada dalka qaar ka mid ah oo ay soo saareen. xarunta dib u raxma booli clinic center qofkii dhimarka beelay xididada dhaqaaqiyo dareemaha u dhaadhaca dhugta laga asiibe xiskii uu isdhaafee ogaalkiisa uu dhumay dhakhtarkii waxaa yimid dabiibayi dhimirke haddii eeba uu dhaho dhaqsa aad bogsootide yuu ku dhaafi soo gaar dib u raxma booli clinic center midka qalalku uu dhibay hadba meel ku dhacayay xasuusta ay dhumaysee waalidu u dheer tahay dharka kaan xafidan karin daanku uu isdhaafee afqaloc ku dhacayo dhakhtarkii waxaa yimid dadku dhab u jeclaayeen ha kaa dabiiba dhimirke yuu ku dhaafin soo gaar dhaqsa aad bogsootide dib u raxma booli clinic center ruuxuu neer fadhibayaan dhacdid u jiifsano hurda aan dhammaysane haddii uu dhakada iyo ogada dhammaanteed xanuun madaxa kaa dhibay walleemadu dhib weeye doctor u leh xirfada dhaba takhasuskiisu dheer yahay yuu ku dhaafin soo gaar dhaqsa aad bogsootide dib u raxma booli clinic center haddaba xarunta dib u raxma oo ah xarun ay mahadiyeen adiga iyo inta kula midka huba waxaa ka howlgala dhaqaatiir xirfad iyo waayo aragnimo dhammaystiran u leh dhammaan cudurrada ay kaa daaweynayaan haddaba xarunta dib u raxma booli clinic waxaa kugu diyaara dhakhtar wax ku soo bartay dalka Shiinaha waayo aragnimo fog iyo khibrad heer sare u leh howlaha caafimaad uu ku qabanayo xanuunada uu ka daweyn doono insha Allah waxaa kamid ah waalida qalalka laleelmada afqalooca muruq xanuunka xidid xanuunka madax xanuunka saa'idka hurdo la'aanta iyo ilmaha isku kaadiya xasuus la'aanta jugta keenta neerfaha iyo baraleeska aan dalka wax looga qaban karin haddaba xaruntu waxay ku taalaa ex gurigii hore ee daalo inta u dhaxaysa baarbax iyo balaagsi wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriiri kartaan telefoon lambarada kala ah Iberli xal 5 72444 Iberli xal 8 6 33 17 ama line-ka 6 ogeysiis dhammaan dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa la ogeysiinayaa in Titor Ibrahim Dasuuqi oo dalka dibadiisa ku maqnaa dib uga howl bilaabay xaruntiisa Dasuuqi Medical Center xarunta caafimaadka ee Titor Dasuuqi Medical Center oo aad uga barateen adeeg caafimaad oo tayo sare leh waxaa lagu soo kordhiyay Alisa Mission oo ah mid ka mid ah noocyadii ugu dambeeyay ee lagu baaro xanuunada wadnaha iyo hormoniska waxaa kale oo isbitaalka diyaar kuugu ah kombiyuutarka xanuunada wadnaha lagu ogaado sida echocardiography iyo ECG sidoo kale waxaad ka heli kartaa kombiyuutarka ultrasound oo lagu ogaado ilmo galeenka iyo uurku jirta sida keliyaha iyo beerka xarunta waxaa ka howlgala Titor Ibrahim Dasuuqi oo ku takhasusay daweynta cudurrada guud kuwa gudaha iyo wadnaha rugta waxaad kaloo ka helaysaa shaybaar casri ah iyo farmashiyo daawo tayo sare leh laguna diyaariyay heer kulkii ku habboonaa maalmaha shaqada waa sabti ilaa khamiis saacadu shaqaduna waa 2 subaxnimo ilaa 9 galabnimo xaruntu waxa ay ku taalaa dhabarka dambe ee hotel Shamu wixii faahfaahintaasi dheeraadana waxaad wici kartaan telefoon lambarada line 85 14 Iberli xal 5 86 56 27 Iberli xal 5 85 20 ama Iberli xal 9 Iber 2 Iber 9 haddaba ha moogaan oo horay u soo gaar isbitaalka Titor Dasuuqi Medical Center
qaybihii dambe ee barnaamijka qubnaha wararka Shabeelle ayaynu soo gaarnay oo caaw intiisa badan aan kaga hadalnay baarlamaanka Soomaaliya oo maanta taladii ka tuuray xukuumaddu uu hogaamin jiray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre madasha xisbiyada qaran ayaa war qoraal oo ay soo saareen maanta dhexdooda isku khilaafay madasha xisbiyada qaran ayaa ka soo baxay qoraal u qornaa sida tan madasha xisbiyada qaran waxay u taagan tahay ilaalinta sareynta sharciga iyo in si xasilooni ah looga gudbo xaaladda kala guurka ah ee dalku marayo madashu waxay u aragtaa kalsooni kala noqoshada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in ujeedkiisu ay tahay carqaladeen iyo burburin lagu sameynayo go'aanadii shirka dhuusamareeb isla mar ahaantaasna ay tahay mid looga gogol xaarayo mudakarasi aan sharci ahayn madasha xisbiyada qaran waxay ka xun tahay in xilligan oo waqtigu hay-adaha dastuuriga sii dhamaanayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu hormuud ka noqdo qallaaso siyaasadeed oo ay adag tahay maareyntiisa madashu waxay ku baaqaysaa in la ilaaliyo isfahamka siyaasadeed ee bilowga ah lagana fogaado wax kasta oo keeni karta qallaaso siyaasadeed iyo in doorashada waqtigeeda ku dhacdo oo aysan dhaafin muddaxileedkii dastuuriga ahaa noqotana mid taladeeda loo dhan yahay wadar ogolna ah ugu dambeyn madashu waxay ka digaysaa in isku day kasta oo loo gol leeyahay muddo kordhin mar kale ayay ku celsheen haddaba warkan ayaa ka soo baxay madasha xisbiyada qaran oo ay ku midaysan yihiin xisbiya mucaarada xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan madashaas ayaa warqadaas ku tilmaamay mid been abuur ah oo aan ka soo bixin madasha sidoo kale senator Ilyas oo isna ka tirsan xisbiga himilo qaran ayaa arintaas ku tilmaamay mid aan waqtigii loo baahnaa imaan oo aanay loo dhameyn xildhibaan mahad maxamed salaad wuxuu ka tirsan yahay xisbiga UPD oo hogaamiyay siyaasiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halka senator Ilyas Cabdi uu ka mid yahay xisbiga himilo qaran hogaamiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif sidoo kale xildhibaan dhowr oo ka mid ah xildhibaan Maxamed Xasan Idris Ganay oo ka tirsan xisbiga himilo qaran ay golaha shacabka Soomaaliya ka tirsan ayaa arintaas isaguna sheegay tahay mid ka soo baxday madasha xisbiyada qaran sidoo kale xildhibaan Yuusuf Gamaadid ayaa isaguna sheegay in warqadaasi ay ka soo baxday madasha xisbiyada qaran taas oo ka dhigan in saacadii la soo dhaafay madasha dhexdoodaba ay isku khilaafeen taageeridda ama ka soo horjeedashada in xukuumadda talada laga tuuro guud ahaan caawa inta ayaan dhegeystayaal ku soo afmeeraya barnaamijka qubanaha wararka Shabeelle soo saaraha iyo tabiyaha barnaamijkan waa anigu Maxamed Cali Maxamed farsamada muddada barnaamijku hawada ku jira waxa uu ahaa Suleymaan Aadan Cusmaan waxaan idinkaga tegayaa hees ay ku luuqayaan kooxda midnimo ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya tan iyo barnaamij caynkan oo kale nabadgelyo